السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيوه عشرة هذه نتحناها أونلاين كينو ببحيي عشر كينن ليسن كيني أفراد ويان وأنا شابتر كيني electromagnetic induction تو بيجينا نحن نقدونا أما ليسن كيني بكم حنا نقدونا examples للصعدة lesson 3 example كنا كمان وحنا واير resistance كيسوي هاي لبا أوم أما 2 أوم يهاي supply كحرم باور كحرم لبا كيلو واضح وباور calculate مركا واحد حسابنا حساب باور loss بالينودرا باور loss بالينودرا حنا واير resistance كيسوي هاي لبا أوم باور كحرم يهاي لبا كيلو وات أما لبا كيلو وات وحلا باور نص بالينودر وي waxaan leenahay 200 voltage ayuuna biina 200 voltage waxa xasuusnaataa power loss in aan la heli karin iyadoo current-igi aynaan haysan marka current ma haysano marka imika current-igi raadinayna way waxaan soo qaadanaynaa formuladeennii ahayd power waxa lagu heli jiray power waxa lagu helayaa current-iga oo lagu dhuftay voltage-ka halkaas marka current-iga lagu dhow waxaan leenahay marka power waxa lagu helayaa current-iga oo lagu dhuftay voltage waxaan sameeynaa horta current-igi baynu u sameysanaynaa qaacidadiisa formuladii current-iga ayaynu sameysanaynaa waxaan leenahay dhinac kasta waxaan u qaybinaynaa marka voltage dhinacna waxaan u qaybinaynaa voltage labada voltage baa isla baxaya marka current waxay noo leegtahay power-ka oo loo qaybiyey voltage-ka labada dhinac saasaynu markaa kaga shaqeynayna way waxaan leenahay current-iga tanaynu la soo baxaynaa marka waxaynu leenahay waxay noo leegtahay current waxaynu ku helaynaa power-ka oo loo qaybiyey voltage-ka oo inoo leeg power-ka waxaynu haynaa 2 kilowatt ama 200 watt loona qaybiyey voltage-ka oo ah 200 oo voltage inta markaanu soo qaybino kana kaaynu qaybino waxa weeye waxaan ku helaynaa inay noo leegtahay 10 ampere inay noo leegtahay marka current-iga waxaan haynaa inay noo leegtahay 10 ampere waa eedin power loss bay markaa inaan qaacidadeenii hore aynu soo qaadanay qaybteena hore waxaan ku soo qaadanay power loss waxa lagu heli karayaa power loss waxa lagu heli karayaa current-iga oo la jibaaray laguna dhuftay resistance-ka power-ka oo la jibaaray laguna dhuftay power-ka waxa lagu helayaa power loss waxa lagu helayaa current-iga oo la jibaaray laguna dhuftay resistance-ka imika inuu ku bedelanaynaa waxaan leenahay power loss waxa lagu helayaa ardayda halka yar loss iskaga qorto heli karta markii waa la fahmaya power loss inay gula jeedo current-iga oo la jibaarnay oo 10 ampere oo la jibaarnay laguna dhuftay resistance-ka oo ahaa 2 ohm 2 ohm kan marka la jibaarno waa 100 10 marka 10 lagu dhufto 100 buu noqonayaa power-keenu wuxuu noo leeyahay 100 times lagu dhuftay 2 ohm is equal to wuxuu noo leeyahay maxay 200 oo watt marka power loss-keedeen wuxuu noo leeyahay marka maxay 200 oo watt per soo saar way biidanu gudbayna biidana isla sidan ugu shaqeynayna waxaanu leenahay power-ka current-iga iskala soo baxnaa waxaan leenahay current waxa lagu helayaa power loss-ka power-ka baan leenahay oo loo qaybiyo voltage-ka current wuxuu noo leeyahay power-keena waa 2000 watt 200 watt ama 2 kilowatt loo qaybiyey voltage-ka uu leeyahay biid oo ah isaguna 2000 oo voltage marka inta ay soo qaybinaa ardayo wuxuu noo leeyahay 1 ampere biidana wuxuu noo noqday 1 ampere buu noo noqday way marka first step-ka aan qabanay waxaan soo saarnay current-iga ayaynu soo saarnay labada dhinac way power loss baan leenahay marka power loss waxa lagu helayaa current-iga oo la jibaarnay kuna dhufanay resistance-ka way waxaan leenahay marka power loss-keenu wuxuu noo leeyahay imika current-iga waxaan haynaa 1 ampere baan haynaa
halkeena ambiyaar baan laba laabno waxaan ku dhufanay resistance-keena ahaa 2 ohm isigolto kale wuxuu loo leeyahay labadii waad waayo hal hadii lagu dhufto hal waxba isma bedelay 2 ohm ku dhufo wuxuu loo leeyahay 2 watt buu loo leeyahay kaas way xaleegna example kale ayuu eegaynaa inuu uga faa'iideysano xiisadeenan halkan waxa loo yaala xabad yar oo transformer-keena waxa la yiri supply voltage-ka uu ku xidhan yahay mareegta koowaad ee primary voltage primary coil xasawda koowaad voltage-ka ku xidhan tahay waxa weeye 240 voltage yes waayahay waxa la yiri transformer-keena yar oo example-keena labaadina waxa la yiri mareegteena koowaad ee primary coil-keena waxay ku xidhan tahay 240 voltage bay ku xidhan tahay 240 voltage ayay ku xidhan tahay kow number of turns inta jeer ay xagga kaga duuduuban tahay waaye example-keena labaad halkan waxa loo yaala bariiro transformer-keena yar waxa la yiri mareegta koowaad ama primary coil-ku wuxuu ku xidhan yahay voltage 240 voltage buu halka kaga xidhan yahay sidoo kale isla coil-keena primary-gaahi waxay duuduuban tahay dhinaca kaga duuban tahay transformer-ka kun jeer bay ku duuban tahay ay dhinaca kaga duuban tahay dhinacan dambe secondary coil-ka ama output-ka waxa la yiri output waxaanu haynaa voltage-ka 120 voltage laakiin number of turns inta jeer ay xagga kaga duuduuban tahay binaan garanayn saas darteed waxa la inoo diray number of secondary turns-ka ama inta jeer ay duuban tahay xasawdeenan secondary-ga ayaa la inoo diray waaye waxa la xasuusnaataan NB bayna ama number of primary coil-ku ay ku duuban tahay equal to waaye voltage-ka primary-ga loo qaybiyay maxay voltage-ka secondary-ga waxaanu naqaanay cross bay isku dhufan jireen cross ay isku dhufan jireen labadaasna isku dhufan jireen labadaasna isku dhufan jireen si aanu soo helno maxay formuladeeda saxan si aanu helno okay marka inta isku dhufano waxay noo leegtahay number of primary MB VS equal to NS oo lagu dhuftay VB kaynu doonaynaa waxa weeye waa number of secondary turns dhinac walba waxaanu qaybinaynaa marka voltage-ka primary-ga halkan waxaanu qaybinaynaa voltage-ka primary-ga labadaas ay cancel garaynaya ka number of secondary waxa lagu helaya number of primary-ga oo lagu dhuftay primary coil-ka oo lagu dhuftay voltage-ka secondary-ga loona qaybiyay voltage-kii primary-ga inta yar baa la kaysiinayna marka isaga inta yar baa la kaysiinayna inagoo ku bedelanayna tirooyinkii waxaan leenahay number of secondary-ga wuxuu noo leeyahay waxaan ku helaynaa number of primary-ga MB oo lagu dhuftay voltage-ka secondary-ga loona qaybiyay maxay voltage-ka primary-ga tiradii aan ku bedelanaynaa imika number of primary turns-ku misay duubnay kun jeer bay duubnay oo lagu dhuftay voltage-ka secondary waa imisa waa 220 loona qaybiyay 240 ah maxay voltage-ka secondary-ga voltage-ka primary-ga ma lahayd xabada ay fiida damirka ay fiida meesha ka saaraysa way xabada ay zero-ga la damirka ka tuub kaga tuub okay 12 qayb waa mid hal 12 qayb kana waa mid laba waxaan 12 qayb ka oo mid hal 12 qayb dad calculator aan haysan sidana ku fudud waa mid laba way labana qayb kun labana waxa uu sii qaybisaa kunka halka inoo yaala uu sii qaybi waxa halka inoo haraya aan kala yaro kala ku qoro labadan
halkan ugu hadhaya 500 ayaan ugu hadhay marka waxaan leenahay numberka secondary coil-ku ay duuban tahay waxa weeye 500 oo jeer ayay duuban tahay waxay leegtahay markaa baan leenahay 500 ayay ku duuban tahay ay dhinaca kaga duuban tahay way example saddexaad wuxuu sheegay transformer baa halkan noo yaala kow transformer-kii xarkii baa ka tagay mareekale transformer-kii xarkiisa ku xidhan yahay mareegtaas waxay ka kooban tahay voltmeter laba waxay ka kooban tahay maxay ammeter sidoo kale laambad baa ku xidhan marka haday tan oo kala timaado sidaba looga dabaalanaya waxa la yiri transformer-kii marka dhinaca voltage-ka soo baxayay ee laambadan imanayay la garan maayo sidoo kale voltmeter kana la doonayo marka in la soo saaro calculation hal lagu soo saaro voltage-kii laambadan imanayay ammeter current-ga ilahay laambadani ayaa la doonayaa iyadana inaan soo saarno sidoo kale power-kii ay laambadani lahayd ayaa loo baahan yahay in la helo marka waxa leenahay reading voltmeter wala laga baahay voltmeter-ku waxa akhriyay inaad soo saarto sidoo kale reading ammeter-ku isaguna muxuu akhriyay ama uu soo saarayay oo soo saaraysa qodobka saddexaad power of the lamp laambadu power-ka ay lahaydna waa laga doonayaa solution-keenu eegna marka waaye waxaan maqaanaa wax la weydiiyay voltage baa imika laga maqan marka waxaan iska naqaanay inoo laagtahay MB by NS voltage primary-ga loo qaybiyo voltage secondary-ga saas laajligeed waxaan sameyn jirnay cross uma isku dhufsan jirnay inagoo isdhibayn ayaan sidaan isugu dhufan jirnay marka voltage secondary-ga ayaa wuxuu ku dhacayaa maxay MB-ga waxaan leenahay intaas wax iska leegtahay waxaan leenahay intaas wax inoo leegtahay voltage secondary-ga oo VS oo lagu dhuftay number of primary-ga equal to ama calaamad ama GTR ay ka dhign saas ku raboon tahay equal to wax inoo leegtahay number of turns of secondary-ga oo lagu dhuftay voltage primary-ga oo leeyahay maxay voltage primary kan la weydiiyay waxa weeye waa voltage-ka secondary-ga ee la weydiiyay ka waxa la dhinac kasta waxaan qaybinaynaa number-ka of primary baynu qaybinaynaa dhinacna waxaan qaybinaynaa number-ka of primary labadaas la baxay number of primary saas laajligeed halkan waxaan ugu soo harayaa voltage-ka secondary-ga inuu noo leeyahay waa formuladii hadda hoy la soco inuu noo leeyahay number of turns secondary-ga oo lagu dhuftay voltage-ka primary-ga loona qaybiyay number of primary turn ku bedelo hadaba tiradaadii yarayd ku bedelo adigoo calculation qiimihiisa soo saaraya waxaan leenahay voltage secondary wuxuu leeyahay number of turns kun soo kun jeer baa la duubay 1000 times ayaa la duubay lagu dhuftay voltage-ka primary-ga way kun jeer ayaa la duubay baan niri sax number of turns of secondary-ga baan leenahay waxa la duubay 50 jeer kun laba duubay 50 baa la duubay hoy wariyaa 50 oo lagu dhuftay ama lagu dhuftay sidaan qoro voltage-ka primary-ga waa 240 voltage loona qaybiyay number of turns-ka inta jeer la duubay primary-ga oo ah kun jeer in la duubay intaas waxay noo leegtahay xabada yare siirooga marka yare siirooga waa tuurba xabad xisbin marsiirooga marka yare tuur xabada yare siirooga marka yare la baxo halka inuu yeelay shan u qaybid oo mid waa hal shan u qaybina waa laba u qaybi 24 waxaanu yeelaa 12 aan malaynayaa si waadix loo arkay marka voltage-keena secondary wuxuu noqonayaa 12 voltage inuu noqonayaa voltage-keena secondary wuxuu noqonayaa lambada iyo voltmeter-ku akhriyay 12 voltage way b number b wuxuu leenahay reading ammeter-kan bal current-ga uu akhriyay isaga soo saar waxay leenahay isaga waxaan ku helaynaa voltage-ka waxa lagu heli jiray current-ga oo lagu dhuftay resistance-ka maadaama ay resistance leedahay laabud afar voltage-keedina ay helay de halka aan ku heli karayna oo si yaro dhowbe inaga meel fog ba ka soo wareegay u tii karayna
waxaynu samaynaynaa maadaama current layna weydiiyo dhinac walba dee r baynu qaybinaynaa dhinacna waxaanu qaybinaynaa r baynu qaybinaynaa labada r way isla baxayaan marka current waxa lagu helayaa voltage-ka oo loo qaybiyo resistance-ka current waxa lagu helayaa voltage-ka oo loo qaybiyo resistance-ka waaya halkan inagu qordo current-geennuna wuxuu inoo leeyahay voltage-ka waanu qaybinay r voltage oo misaad ahayd 12 voltage r na waa 4 ohm inta marka la isku qaybiyo wuxuu noqonayaa 4 u qaybi waa mid hal 4 u qaybina waa mid 3 4 u qaybi waa mid hal baynu 4 12 u qaybina waa mid 3 sidaas darteed 3 ampere ayuu noo noqonayaa current-geeni wuxuu noqonayaa 3 ampere ayuu noo noqonayaa way kaasina waxa qodobkeena saddexaad bal waxaan eegaynaa power-ka ay leedahay laambadu ay lahayd waxaan leenahay power-ka ay laambadu lahayd waxaan ku helaynaa isagana waxaan ku helaynaa power-ka ay laambadu lahayd waxaan ku helaynaa isagana p waxa lagu helayaa current-ga lagu dhiftay voltage ayaa isagana lagu helayaa oo maadaama ay haysano voltage-ka laambada 12 current-geedina ay soo saarnay 3 ampere halkaas ay ku dhantahay formuladaas waxaan leenahay markaa maxay deelugu bedelba power-ka ay leedahay laambadu waxa weeye current-ga imisa haynaa 3 ampere baan haynaa lagu dhuftay voltage-keeduna waa imisa voltage-keeduna wuxuu la 12 intaas waxay noo leegtahay 36 watt ayay laambada power-keeduna inoo leeyahay saasay taasina markaa sax ku noqonaysa waayahay inta markaa waxaanu raacinaynaa oo aynu example-ada ku daraynaa waxa weeye power problem is involving electricity transmission bal inaynu isla aragno dhibaatooyinka iyaguna ka dhalanaya soo gudbitaanka electricity-ga oo dhowr yar oo qodobka kale ku xiga waxa weeye way sababta loo isticmaalay power transmission-ka maxaa lagu isticmaalay badanaysa oo lagu isticmaalaa maxay AC-ga ama sidoo kale maxaa lagu isticmaalaa maxay AC current ama alternating current oo DC lagu isticmaali way intaas uma raacinayna labada leen baa raacinayna way waxaan leenahay hadaba power transmission is always done by using AC because badan waxa laga yaabaa in ardaygu isweydiiyo maxaa si kaliya lagu isticmaalayaa in power transmission ama shirkaduhu isticmaalaan oo DC-ga loo isticmaalo horana wuu soo yar sharaxnay maadaama gabagabo cashirkeenu taagan yahay waxaanu leenahay waa intan AC generators are simple waa kuwa fudud cheap ka jaban more reliable laga kalsooni badan yahay aan waliba more efficiency kana saxnaan badan DC-ga dabka loo yaqaan direct current-ga taasiiday qodobka labaad AC generators can be waxa laga dhigi karayaa step marba sare loo qaadi karayaa oo shirkadu haday soo deynayso dad 10 kilovolt ama 5 kilovolt ay soo deynayso transformer-ka marka uu marayo 200 kilovolt buu uga dhigaya marka waxaan leenahay can be step up lagu sameyn karaya sidoo kale dabkii 200 kilovolt laga dhigay step down baa lagu sameyn karaya waa la yareyn karaya si magaalada lagu qaybiyo ama aan guryaha wax u yeelin bay using iyadoo la isticmaalayo transformer la isticmaalayo ama static machine labada magac waa isku mid static machine iyo transformer labadooda isku way hadaba dhibaatooyin baa jira marka dhasha marka dabka la isticmaalayo iyagoo kooban waa inta problem is involving la xiriirida electricity transmission marka maayada nabkaas qulqulayaan in magaalooyinku galiyaan ama kooraankaasi soo socdo dhibaatooyin kana dhici karaya power loss baa jira during transmission power loss baa dhacay wiyaan calculation ku soo qaadanayno dhanba waxay ahaayeen power laga faa'iideysan lumayna qodobka labaad high voltage transmission tabcaad u sareeya ayaa la soo gudbinayaa keebiladuna waa very dangerous aad buu khatar badan yahay oo kuwa waaweyn sabadaha soo maraya weeyaan oo sheegay koska keebilada la soo siiyay shirkadu soo siisanaysaana is very high aad u sareeya oo lacag badan bay shirkadu ku soo iibsanaysaa way charge baa leakage ama waxa dhacaya maxay inay electronadii meesha marayay ama charge-kii meesha marayay inuu liigo ayaa dhici karaya maybe haban ayaa dhici karaya between ka soo dhaxaynaya keebilada iyo dhulka u dhaxaynaya way halka markaan marayno waxa weeye
chapter keeni electromagnetic induction class ka form 4 chapter 10 lesson keenu inuu ahaa lesson 4 ilaa iyo lesson 1 ilaa lesson 4 baan soo wadnay intaas inuu ugu egyahay waxa kale oo raacayna waxa weeye inaad arday soo daraasadayso national grid ama grid line ka wax loo yaqaano in soo shaqeeya buugu kugu taala research kalena ku samee tusaale faa'iidooyinka uu leeyahay qasaaraha uu leeyahay iyo inuu possible ka yahay ba inaka dhulkeena iyo sidii aad adigu fikirkaaga ugu aan lahaa kadibna igu soo dir message sida ugu soo shaqeysay 10ka وبالله التوفيق chapter kan inta soo ugu xiran yahay. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.